Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan akhyaarta Iftar Channel ku xidhan soo dhawaada ayaan idin leeyahay isku soo noqod wanaagsan soo dhawaada dhammaantiin halkan waxaan idinkula wadaagayaa maraq yar oo laga sameeyay qudaar keliya halkan waxaa inoo yaala bahalkaas cauliflower la dhaho cauliflower I don't know wax af Soomaali lagu dhaho yaanyo basal bocor iyo misir iyo kaarooto iyo also badarkaas yariiska oo unsalted badarka la dhaho asagana waan ku karineynaa insha Allah wax saliida maanan ku darin halkan waxa inoo yaala bahashaas la dhaho cayenne pepper waa basbaas yar oo maaragtay la shiiday halkan kale waa lemon pepper waa liin dhanaan iyo filfil la isku shiiday halkaas kale waxa inoo yaala filfil kaligeed marka intaana oga dhigeynaa ii sheeg dhanaan halkan waaka wixii oo dhan waan soo jarjaray kulli aan isku soo wada jarjaray mindiya u qaatay waa soo dhaqay oo soo nadiifiyay oo soo jarjaray hadda halkan digsigii aan badarkii ku riday badarkayga yaraan halkaa ku ritay inta badarkaas marka uu yar shilmo basashii aan ku daray maasha Allah haddana qudaartii kale oo dhan aan isugu geeyay hal mar marka waxaan rabaa wax yar jarraq inay dhahaan ay yar shilmadaan markay wax yar shiilmadaan kadib ayaan waxaan sameyneynaa waxaan ku dari doonaa ii sheeg markay wax yar shiilmadaan waxaan ku dareynaa bahalkii ahaa muxuu ahaa misirkaaneyta ayaantaan horta intaan misirka ku darin waaka waxaan ku dardarayaa ii sheeg lemon pepperkii aan ku darayaa liintii la qalajiyay iyo filfishii iyo basbaaskii aan ku darayaa basbaaskan kayaanka anaa jecel adi hadaadan jeclayn any basbaasaa jeceshaa ku darsan kartaa basbaas cagaar ku darso waxaa rabtid ku darso adiga kula fiicnaada qudaarta sidoo kaleeto waxaa adiga jeceshaa ku darsan kartaa aniga anaa intaan iska jecel marka adiga iyo dookhaaga kolley waxaan dhihi lahaa laakiin ha iskaga darin bahalkii ahaa corn ama ii sheeg muxuu ahaa sabuulka qudaarta yararoo sabuulka ku jirto because marka hadhowta la shiido si fiican uma shiidmanayo maraqan waa la shiidi doonaa yaa amar allay ku dhacday in maraqan la shiido maasha Allah haddana waxaan kusoo dareynaa misirkeeniyaan ku darnay misirkii aa la dhahay abuukaali keligaa banaanka ma joogaysid asxaabtaada ha ka harin maasha Allah waxaa ku dhahay meeshaan waa la walaaqay nafta walaaqa lagaga qaaday waa kanaa hadda waxaan sameynayaa digsiga dabool aan ku xiri doonaa daboolkii aan lasoo daahay cusbaan kasoo hormariyay wax yar cusbaan ku daray maasha Allah cusbadaas yariista ahaa ku daray haddaadan cusbo rabinna maba ku daraysid baka waran because lemon pepper ku dartay cusbo saa'ida uma baahnaba geedkii pressure cook waay digsigan aan ku karinayo adiga wax yar daqiiqada yar aan ku xiray adi like less than 10 minutes inta 10 daqiiqo yar aan ku xiray neeftan ku celiyay because pressure cook waay hadaada pressure cook inaa ku kariso khasab ma aha digsiga allayaala digsiga haysataa ku karin kartaa waqtigeeda iska qaadanee no problem qudaar allayaala qudaartaa rabtid ku darso laakiin winterkaaneyto hargabka qabowga waxaan ku dhahay caajiska alaabtan ka cab ma fahamti haddana waxaan usoo qaatay mashiinkaas yarka oo wax lagu shiido asagoo kululaan shiiday jarrag mashiinkan wax qarxayo waxaas mooho haddaadan mashiinkan haysanin wax kasta oo aa haysatidaa ku shiidan kartaa jis haddaa blenderka ku shiidaysid yar qabooji si uuna kaaga qarxin blenderka maasha Allah haddaa keligiis cuni kartidna cun yaa aniga saanaan ku jecelahay inaan shiidaa ku jecelahay dhagwa kaasa alaabtii oo yellow laa ilaaha ila Allah maxamed rasuul ani hadda waxaa waqti dheera idinka maqnaa waxaa isdhahay asxaabtaadii adoo cunto u wadin ha ku laabanin yaa marka waxaa isdhahay qabow waaye maraq unbaa ku fiican yaa maasha Allah waa kana waa soo karinay ilaahayow intaan haysanin intaas siisay oo anaka ugu horeynana noo siyaadi alxamdulilaahi rabbil caalamiin wakaasahay alaabtaasaa isku dhufanaysaa maasha Allah adiga qabow hargab miniminidaas dhan ma jirtaa ku dhahay maasha Allah wakaasahay asxaabe qudaar kasta oo ilaahay uu sameeyey oo adduunkan keenay waxbay u fiican tahay maasha Allah
haddaan waxoogow ka yar sheekeyno bahalkan la dhaho squashka ama ii sheeg bocorka af soomaaliga lagu dhaho. maasha allah waxyaabaha u fiican yahay waa alaara staff u fiican yahay waxyaabo badan. laba waxoo ka mid ah haddaan sheegno wuxuu u fiican yahay kalastaroga. dadka kalastaroga qaba maasha allah intay baradhada cuni lahaayeen ayagoo asaga cuna u fiican. also waxaa kaloo u fiican yahay dadka dhiigkarka qaba inuu u fiican yahay dhahaan. maasha allah iyo waxyaabo kaloo badan oo halkan ani aan kusoo koobi karin. bahalkaas kale ee cad ee meeshas yaalana waxaa waaye cauliflower. cauliflower af soomaali wax lagu dhaho ma aqaano. cauliflowerka isaga wuxuu u dhigmadaa adoo digir cuntay camal ama hilib cuntay camal. borotiinka hilibka iyo digiraha iyo waxaas laga helo asagana laga helaa. maasha allah inaba caadi ma aha. kan kale waa misir halkaa yaala asagana. maasha allah misirka waa wada taqaaniin ama laanteeska asagana waxyaabo allad of staff u fiican yahay maasha allah. sida hadda dadka caloosha oo taagan tahay oo kaleeto oo constipationka qaba wuu u fiican yahay. ii sheeg muxuu ahaa alaara staff adi waxyaabo badan u fiican yahay isagana. xataa dadka oo rabaan inay weight loss sameeyaan oo weightka iska dhimaan macnihii haddaadan badhar iyo adduunyo ka buuxinin asagana weightka dadka uu ka caawiyaa. also waxaa kaloo laga helaa anti aging haddaa rabta ma aragtay 10 years younger asaga iskugu dadaalo. kaarootada maasha allah iyadana waa wada garanaysiin. dadka indhahooda ay daciifka yihiin oo aragooda uu daciifka yahay aan dhehee bay iyadana maasha allah aada ugu fiican tahay. marka kaarootada camal markaa rabtid faa-iidadeeda inaa heshid ama benefitkeeda waxaa fiican inaad shiidato oo caadi intaa u shiidato juus ahaan u cabto ama aada iyadoo maaragtay caadi cuntid. sida hadda tan camal waa baby carrot waa iyadoo yaryar waaye. maasha allah waa caadiya u cuni kartaa intaa dhaqato xataa dawaaweyn intaa jarjarato waa cuni kartaa. maasha allah benefitkooda inaba caadi ma aha. qudaar kasta oo meesha taala you name it kulli waxbay wax u fiican yihiin maasha allah.